Aroor hore, shaqaalaha TV-guna ay u socoto xaruntii shaqada, waxaa khilaaf ka dhex dhacay iyada iyo ninkii qabay. Ninkaasi oo businessman ahaa, waxa uu moodayay in haweenaydiisu ay ka qarisay fayl ay tusayso dadkay cadowga yihiin. Faylkaasina uu aad muhiim u yahay. Iyada oo murugaysan oo cadhaysan oo ooyeysay ka soo baxday gurigeeda, waxayna farta ka saartay kaatunkii dhalashadeeda oo uu u hibeeyey ninkeedu si aanay u xasuusan. Waxayna ku ridatay fargalka boorsadii lacagta, iyadoo leh markani waa markii u dambeysay. Waxa aan weydiisanayaa warqaddayda marka aan ka soo laabto meesha shaqada, intuusan isaguba juuqii odhan. Isla maalintaa, ilmo yar oo agoon ah, hooyadiina u wanaagsan, akhlaaq badanna leh, oo u socda warshad nijaaradda ah oo uu ka shaqayn jiray si uu ugu bixiyo masaariifta hooyadii iyo walaashii, ayaa uu ka daahay. Sidaas daraaddeed, subaxii baa la soo buriyey. Sababtuna uu u daahayna waxay ahayd hooyadii oo xanuunsanaysa ayuu habeenkii ku dhafray. Wiilku guriga waxba kuma ogeyn. Hooyadiina inay dawo u baahan tahay ayuu ogaa. Sidaa daraaddeed, waxaa la soo diristay markii shaqada laga buriyey murug adag. Waxaana uu fadhiistay meel kaabad ah oo bannaan ah, isagoo ilmeynaya, ilaahayna baryaya. Gabadhii TV-ga u socotay shaqaalaha ahayd ayaa markay gaadhiga waday waddada, waxay aragtay wiilka. Inta baabuurkii joojisay bay boorsadii iyo wixii ku jirayba siisay wiilkii. Waxay ilowday in kaatunkii dhalashadeeda oo maas ahaa ama dheeman ahaa uu ku jiro. Wiilkiina waa uu u duceeyey, alaabtiina waa qaata. Wiilkii oo gurigii aaday, waxa uu la kulmay hooyadii oo salaad duxa tukatay una ducaynaysa. Markuu wiilkii furay boorsadii yaraydna, wuxuu ka helay kaatunkii. Waa uu soo dhaqsaday, isagoo meeshii u soo laabtay uu haweenayda ku arkay, laakiin ma uusan helin markan. Gurigiisii ayuuna isaga soo laabtay markuu waxba soo waayay. Gabadhii markii shaqadii u soo dhammaatay ayay waxay timi gurigeedii, waxayna ka war heshay ninkeedii oo raaligelinaya, kadinkana u taagan si uu u cafis uga dalbado, una sheegaya faylkii uu kaga shakiyey iyada inuu ka helay xafiiskiisa. Halkaasi markii xaajo marayso ayay haweenaydii waxay xasuusatay fargalkii dheemanka ahaa ee ay tuurtay. Murug ayaa daf la siiyey, iyadoo aan kelmadba ku hadlin. Subaxaa xigay waxay aaday meeshii ay ilmaha yar kula kulantay. Waa ay la yaabtay markay aragtay wiilkii yaraa oo baadhbaadhaya dadkii meesha marayay oo dhan. Markii uu arkayba, wuu kula soo orday, waxaana uu siiyey khaatankeedii isagoo oo raaligelinaya. Haweenaydii ayaa waxay la yaabtay wiilka ammaanadiisa. Markiiba waxay u qaadatay gurigeedii, ninkeediina way tustay. Markii ninkeedu uu qisadii wiilka ogaadayna, waxaba uu u iibiyey warshad dhan oo nijaarad ah, si waxa ka soo baxay faa'iidada ah ay laba ugu qaybsadaan. Cunugii ayaa inta Ilaahay ku shukriyey oo sujuuday, yidhi nebigii Ilaahow run baad sheegtay. 3 khislo ilaaliya. Ilaahay iyo rasuulkiisu waa idin jeclaanayaan. Inaad runta sheegtaan, inaad ammaanada gudataan, iyo inaad dhaqankiina deriska hagaajisaan. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا
بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan sabskaraib saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid.